Maxkamadda magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa 4 sano oo xabsi ah iyo 2 sano oo xabsi ah ku kala xukuntay laba gabdhood oo walaalo ah kuwa oo 2013 u safray dalka Suuriya si ay ugu biiraan ururka xagjirka ah ee Daacashar. Labada gabdhood ayaan qiran dambiga lagu helay waxayna sheegeen inaysan helin fursad ay ku soo baxsadaan isla markaana ay tacadiyo iyo cadaadis xoogan kala kulmayeen raggii iyaga qabay. Gabdhahan walaalaha ah ayaa labaduba ku jiray da'yar markii ay ka safrayeen gurigooda oo ku yaala xaafadda Brumin ee magaalada Oslo 2013 markaa oo ay ku biireen ururkan xagjirka ah. Gabdhahan ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen koorsooyin kala duwan oo ay bixiso kooxdan iyagoo haween badan ku dhiirigelinayay inay u safraan dalka Suuriya oo ay guursadaan rag ka tirsan ururkaasi. Gabadha weyn oo 31 jir ah oo lagu xukumay 4 sano ayaa waxaa qabay dagaalyahan ajnabi ah oo ka safray isaguna dalka Norway, halka gabadha yar oo 27 jir ah oo lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah uu qabay dagaalyahan ajnabi ah oo isaguna ka tagay dalka Ingiriiska, waxaana labada ninba la dilay 2019. Hay-adda sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA ayaa ka dhawaajisay in ay rumaysan tahay in COVID-19 ama coronavirus laga soo daayay shaybaar Shiineys ah marka loo eego asalka uu ka soo jeedo viruskan. Aragtidan cusub ayay hay-adda soo bandhigtay 2 maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu u magacaabay agaasimaha cusub ee hay-adda CIA Yohan. CIA ayaa sheegtay in asalka cilmi baarista COVID-19 uu ka badan yahay asalka dabiiciga ah ee lagu yaqaano virusyada, waxayna intaa ku dareen in ay sii wadi doonaan baaritaanka iyo dabagalka ay ku hayaan. Madaxa cusub ee hay-addan Yohannes ayaa Jimcihii ka dhawaajiyay in uu mudnaan weyn siin doono viruskan COVID-19 meelna uu ku soo ogaan doono asalkiisa. Booliiska magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa xabsiga u taxaabay 3 nin oo qayb ka ahaa dagaal gacan ka hadal ah oo ka dhacay xaafadda Grønland ee magaalada Oslo. 2 ka mid ah raggani la xiray ayaa dhaawacyo waxa ay ka soo gaareen wajiga iyo madaxa, waxaana goobta looga qaaday gaari ambalaas si loogu soo dabiibo isbitaalka kadibna loogu kaxeeyo saldhigga. 3 nin oo da'doodu u dhaxayso 21 jir ilaa 31 jir ayaa laga soo xiray eriyada Toyebakken sida boolisku sheegay oo u dhow xaafadda Grønland Torg ee magaalada Oslo. Taliyaha howlgalka booliska Rune Hekstad ayaa sheegay in baaritaanada dheeriga ah ay muujin doonaan doorka ay 3 qof ku lahaayeen dagaalka meesha ka dhacay. Mudaharaad baaxad weyn oo ka dhan ah xisbiga midigta fog ee dalkaasi Jarmalka AfD ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka dhacay magaalada Berlin, waxaana isugu soo baxay ku dhawaad 30,000 oo mudaharaadayaal ah. Dibadbaxayaasha ayaa adeegsanayay iftiinka tooshashka iyo taleefanadooda gacanta si ay u sameeyaan iftiin baaxad weyn oo muujinaya cadadkooda iyo sida ay uga soo horjeedaan siyaasadda midigta fog ee AfD. Christopher Busse oo ah asaasaha ururka danaha siyaasadda ee Compact ayaa ku booriyay dhinacyada kale ee siyaasadda dalkaasi Jarmalka inay ilaaliyaan hadafka guud ee ka dhanka ah xisbiga AfD oo hadda inta badan xisbiyada siyaasadda dalkaasi ay diideen inay la shaqeeyaan maadaama siyaasadooda socdaalka iyo soo galootiga ay tahay mid aad xagjir u ah. 23 bisha February ee nagu soo foolay ayay dadweynaha dalkaasi Jarmalka u dareeri doonaan doorashooyin cusub kadib markii ay dhacday xukuumaddii wadaaga ahayd ee dalkaasi ka jirtay, waxayna ra'yi ururin cusub oo la sameeyay muujinaysaa in xisbiga midigta fog ee AfD uu hadda yahay xisbiga labaad ee ugu weyn dalkaasi Jarmalka. Khubarada caafimaadka adduunka ayaa ka digaysa bakteeriyada dilaaga ah ee Klebsiella oo aad ugu sii fidayso daafaha dunida. Cilmi baaris hore loo sameeyay 2024 ayaa muujisay in bakteeriyadan u adkaysata antibiyootiga ay dili karto in ka badan 39 milyan oo qof ilaa iyo sanadka 2050. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaya bakteeriyadan dilaaga ah oo si xawli ah ugu fidayso meelaha ay dagaaladu ka socdaan sida Ukraine iyo marinka Gaza, waxayna sheegeen in sidoo kale lagu arko meelo ka baxsan goobaha ay dagaaladu ka socdaan, waxayna walaac xoogan ka muujinaysaa hay-adda bakteeriyadan sii faafayso oo weliba sida xawaaraha ah ku socoto. Halka ay wararka ugu door karoon maanta idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.